walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimadda ahay qisadan adiga ayay kuugu socotaa waxaa jiray qof kalluumaysato ah maalintii hal kalluun gurigiisa lagu quudan jiray ilaa intii alle subxaanahu wa tacaala yidhaahdana ayay gurigiisa ooli jirtay marka ay ka dhammaatana xeebta ayuu u laaban jiray si uu kalluun kale u soo gaato maalin maalmaha ka mid oo ninkii kalluumaysatada ahaa xaaskiisa ay jarjarayso kalluunkii ayaa waxay calooshiisa ku dhex aragtay luul way rumaysan weysay oo waxay ula timid ninkeedii waxayna ku tidhi ninkeygiiow bal eeg waxa aan kalluunka calooshiisa ka soo saaray ninkii marka uu yaqiinsaday inuu luul yahay wuxuu la aaday qof isaga dariskiisa ahaa oo luulka ka ganacsan jiray qofkii luulka ka ganacsanayay intuu eegay ayuu wuxuu ku yidhi luulkan anigu ma gadan karo waayo aad buu qaali u yahay lacag lagu qiimin karaana ma jirto balse waxaan kuu tilmaamayaa ganacsadaha ugu weyn ee luulka ka shaqaysta ee deggan magaalo Hiblaay ninkii kalluumaysatada ahaa isagoo luulkiisii sita ayuu wuxuu qabtay meeshii loo tilmaamay qisadiisii ayuuna uga sheekeeyey ninkii ganacsatada ahaa ganacsadihii wuxuu ku jawaabay walaalkaygiiow luulkan aad haysato wax la qiimo ah ma jiro laakiin xal ayaan kuu hayaa ayuu ku yidhi waxaad aadaysaa waaliga degmadan isaga keliya ayaa awooda inuu luulkan gato ninkii luulka iska lahaa wuxuu qabtay waaliga degmada wuxuuna istaagay albaabka waaliga isagoo sugaya in loo ogolaado la kulanka waaliga ugu dambayntii waxaa loo ogolaaday inuu waaliga u galo waaligii marka uu arkay luulka wuxuu yidhi luulka noocan ah waa midka aan in badan raadinayey mana aqaano qaabka aan kuugu qiimeeyo lacagtiisa waayo aad buu qaali u yahay balse waxaan kuu ogolaanayaa qasnadayda oo maalkayga oo dhammi uu ku jiro inaad gasho muddo 6 saacadood ahna aad ku jirto si aad u soo qaadato waxay aad awooddo muddada dhexdeeda ninkii wuxuu yidhi maad 2 saacadood ka dhigtid maxaa yeelay 6 saacadood kalluumaysata anigoo kale ah aad bay uga far badan tahay waaligii wuxuu ku yidhi maya 6 saacadood waan ku siiyey ee waxay aad awooddo soo qaado ninkii kalluumaysatada ahaa wuxuu galay qasnadii waaliga wuxuuna arkay waxyaabo aad u cajabgeliyey qol qurux badan oo aad u weyn oo 3 qaybood ka kooban qayb jawaahir iyo dahab ay ka buuxaan qayb kale oo firaashkii ugu wanaagsanaa ee bani aadam uu ku saxdo uu ku jiro iyo qayb kale oo wax walba oo ay naftu ay jeceshahay inay cunto ama cabto ay ku jiraan ninkii wuxuu naftiisa ugu sheekeeyey 6 saacadood aad bay u fara badan tahay bal marka hore wax cun si aad awood wax ku urursato aad u hesho wuxuu gudagalay ninkii inuu wax cuno oo wax cabo 2 saacadood ayayna ku qaadatay markii uu soo dhammaystay ayuu wuxuu soo aaday dhanka jawaahirta iyo dahabka si uu u aruursado balse wuxuu naftiisa ugu sheekeeyey mar kale maan in yar iska seexdo firaashkan quruxda badan laga yaabo waqti kale inaad fursad u helin ku seexashadiisa saacadda ugu dambaysa ayaad aruursan doontaa dahabka wuu seexday ninkii hurdo dheer ayuuna galay muddo kadib wuxuu soo kacay isagoo lagu leeyahay ka kac hurdada waqtigaaga wuu dhammaaday ee ka bax qasnadda arrintii fajac ayay ku noqotay oo wuxuu yidhi waxba ma aanan qaadan ii suga in yar inta aan wax ka qaadanayo waxaa lagu yidhi 6 saacadood baan fursad ku siiyey inaad waxay qasnada ku jiro aad kala baxdo balse caqligaa waad lahaan weyday miyay kaaga wanaagsanaan lahayn inaad marka hore aruursato dahabka iyo jawaahirta kadibna aad ku gadato cuntada ugu wanaagsan iyo firaashka ugu qaalisan ee naftaadu ay jeceshahay balse waxaad tahay dabaal aanan ku fakarayn ilaa waxa markaasuu u jeedo mooye isaga bax ayaa lagu yidhi qasnada wakhtigaaga wuu dhammaaday qasnadii ayaa laga soo saaray isagoo ku qaylinaya maya wax yar ii suga waan idin baryayaa sidii ayaana looga soo saaray qasnada isagoo gacmuhu maran yihiin qisadu waa ay dhammaatay balse cilmi qaadashadeedu weli ma aysan dhammaan luulka aan qisada ku soo sheegnay waa naftaada waayo naftaada wax la qiimo ah ma jiro qasnada aan soo sheegnay waa adduunyada fiiri sida ay u weyn tahay iyo qaabka aan uga faa'iidaysanno jawaahirta iyo dahabka waa acmaasha wanaagsan firaashka waa qaflada cuntada iyo cabitaankana waa shahawaadka haddaba walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimadda ahay qisadan adiga ayay kugu socotaa miyaysan habboonayn inaad hurdada ka kacdo oo firaashkaas aad isaga tagto oo aad guda gasho inaad aruursato jawaahirta iyo dahabka inta aysan kaa dhammaan muddada lagu siiyey oo ah cimrigaaga si aadan u dhiman adoo shalaynaya oo dhahaya in yar ii suga aan camal wanaagsan samaystee alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay xataa idaa jaa'a axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima tarakt kalaa إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قرت أي جيرida u timaado midkooda uu dhaho ilaahayow ii celi dunida ii celi waxaa laga yaabaa in aan camal wanaagsan soo samaysto saas ma ahan ayuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala waa kelimad uu iska yidhi qofkii dhahay camal wanaagsan baan soo samaysanayaa gadaashooda waxaa ahaaday barsakh tan iyo maalinta la soo bixin doono walaalkayga qaaliga ahow
ma naqaano goorta aan dhimanayno oo alle subxaanahu wa tacaala aan la kulmi doono. mar haddii ay arrintu sidaa tahay waxaa kula gudboon inaad ku dadaasho acmaasha wanaagsan sida sadaqada, balada iyo baaska ayay difaacdaa. salaatuleylka darajaad sare ayaa lagu gaaraa, ku dhicitaanka macsiyadana uu ka ilaaliyaa. labada ragcadood ee salaada subax ka hor la dukado waxay ka khayr badan yihiin adduunka iyo waxa dhex yaalla. qofkii subaxdii yidhaahda subxaana allahi wabixamdihi 100 jeer dembigiisa oo dhan ayaa loo dhaafaa, haba la ekaadee hirka badda oo kale. ciddii ilaalisa salaadaha 5 ah ee jamaacada ku ilaalisa, alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday inuu jannada gelinayo. qofkii suuradda ikhlaas ama qul huwallah 3 jeer akhriya wuxuu la mid yahay sidii qof qur-aanka oo dhan akhriyey. qofkii istikfaarka daa'ima, alle subxaanahu wa tacaala hami walba faraj ayuu uga bixiyaa, cidhiidhi walbana meel looga baxo ayuu alle subxaanahu wa tacaala uga sameeyaa. ciddii ka caajistay inay sadaqada bixiso oo jihaadka aado, salaada habeenkii u istaagto oo soonka awoodi kari weyso, culimmadeenna waxay u dardaarmaan qofka noocaas ah in dikriga alle subxaanahu wa tacaala uu carabkiisa ku daa'imo. maxaa yeelay culimmada salafka waxay dhihi jireen ma naqaano wax cadaabka alle looga badbaadi badan yahay dikriga alle. haddii intaasoo dhammi aad kari weyso, la wadaag fariintan asxaabtaada si aad u hesho ajarka qof walba ee ku cimar qaata qisadan ama ku camalfala nasiixooyinkan. wasala allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi alakhyaar wasalama tasliiman kaiira.